Assalaamu calaykum. Barnaamijka maanta waxaan doonayaa in aan ku soo koobo waraysi maalmo ka hor lala yeeshay ra'iisul wasaarihii hore ee Malaysia Mahathir Mohamad oo maalmo ka hor jirsaday 100 sano amaba hal qarni. Waraysiyo badan ayuu bixiyey, laakiin waxaan doonayaa in aan ku soo koobo qaybta ku saabsan su'aasha ah waa maxay sirta ka dambaysa in asaga oo 100 sano jira oo u muuqdo nin ka yar da'diisa kana firfircoon dadka ay isla filka yihiin ama ay isku da'da yihiin, xag maskaxeed, xag jireed, xag fikir, xag shaqo iyo dhinacyo badan. Barnaamijka ma doonayo in aan uga hadlo taariikh nololeedkiisa, dhanka siyaasadda iyo arrimaha la nooca. Waxaan doonayaa oo keli ah in aan uga hadlo dhanka caafimaad. Sidoo kale waxaan doonayaa in aan soo qaato waraysiyo kale oo uu bixiyey oo ku saabsan arrimahaas, ha ahaadan kuwa maalmahan ah iyo kuwa muddo hore ah intaba. Su'aasha waa su'aal aad loo weydiiyo. Su'aasha ah sidee ku dhici kartaa adiga oo 100 sano jira in aad haddana u muuqato qof caadi ah oo aan 100 sano gaarin? Haddaba Mahathir Mohamad asaga oo ka jawaabaya su'aashaas waxa uu kala qaaday 2 arrimood. Midda koowaad, inuu nasiib u yeeshay in Ilaahay ka ilaaliyey cudurrada halista ah ee loo dhinto sida kansarka oo kale. Arrinta labaadna waxa uu ka dhigay qaab nololeedkiisa. Haddaba waxaan doonaynaa qaybta labaad inaan xoogga saarno oo ah qaab nololeedka. Maxaa yeelay qof kasta wuu jecel yahay cimri dheer iyo caafimaad. Waa waalidku maalin kasta noogu duceeyo cimri dheer iyo caafimaad iyo cibaado suuban. Haddaba qaab nololeedkiisa ama lifestyle-kiisa ayadana waxa uu ku soo koobay in maskaxda iyo jirkaba laga shaqaysiiyo. Waxa uu sheegay haddii aan maskaxda iyo jirka midna laga shaqaysiin inay duugoobayaan, inaysan sidii hore u shaqaynayn, inay sii daciifayaan maalin kasta oo ay sii yaraanayaan jir ahaan iyo maskax ahaanba labadaba waa inaad ka shaqayso. Dhanka maskaxda waxa uu sheegay inuu isku dayo in uusan naftiisa dareensiin inuu qof weyn yahay ama waayeel yahay ee shaqadiisa sida uu waagii hore u qabsan jiray waaguu yaraay uu isku dayo inuu qabsado. Wuxuu sheegay inuu wax akhriyo, wax qoro, uu yaraan 20 buug qoray, dadka la taliyo, fikiro, arrimaha ijtimaaciga ka shaqeeyo, familkiisa iyo ilmihiisa iyo ilmaha uu yahay oo waqti ku bixiyo. Waxa uu sheegay xataa habeenkii markuu seexanayo sariirta korkeeda inuu wax ku akhriyo. Waxa uu sheegay haddii wax ku soo dhacaan inuu isla markiiba warqad ku qorto meel kasta uu joogo, hataa hadduu safar ku jiro. Waxa kale oo uu sheegay xagga jirka markii aan u soo laabanno inuu aalamiito sameeyo, inuu socdo, subax kasta isku dayo inuu xoogaa socdo haba yaraatee. Waxa uu sheegay inuu ku dadaalo inuu hurdo fiican seexdo, ugu yaraan habeenkii 7 saac inuu seexdo habeen walba. Waxa uu sheegay 4 saac ilaa 4 saac iyo bar ilaa 5 saac inuu seexdo habeen kasta, oo isku dayo inuusan waqtigaas la dhaafin 7 saac oo toosana uu jiifo. Waxa uu sheegay inuu subaxdii waqti hore soo kaco ee howlihiisa galo. Waxa uu sheegay 7 saac maalinimo wax ka dambeeya inuusan cabin kafee iyo waxyaabo lamid ah iyo shaah iyo wax kafeen ku jiro. Waxa uu sheegay sidiisa kale inuu inta badan wixii uu arko uu cuno. Waxa uu sheegay in dhaqaatiirtu kula taliyeen inuusan mooska cunin. Sababtan wuxuu ku sheegay kiimikooyinka qaar in ay jirka ku kordhinayaan, laakiin dhan kale marka laga eego waxaa la sheegaa moosku inuu leeyahay waxyaabo maskaxda dejiya kaas oo hurdo iyo caajis keena. Arrinta ugu muhiimsan oo ninkaasu soo hadal qaado waxaa ka mid ah inuu miisaankiisa la socdo, iskuna dayo miisaankiisu inuusan dhaafin 62 kiilo mar kastaba, taas oo markii loo eego dhirirkiisa oo ah 1.70 m body mass indexkiisa ka dhigaysa meel aad u fiican oo aan ahayn, aan cayilnayn, aan caato ahayn. Waxa uu sheegay inuu mararka qaar baaskiil wado. Waxa uu sheegay cuntada inuu inta badan ku dadaalo inuu cuno haruurka, inuu u badan yahay inuu cuno haruurka. Kolley dadka qaar qofba magac ayuu u yaqaanaa. Waxaan u maleynayaa moordi, masaga, waxyaabo saasa. Dadka qaar inay midba wax u yaqaanaa haruur, dad baa yidhaahda. Ma hubo inay isku wada nooc yihiin, laakiin asagu saas ayuu sheegay. Haddaba waxaa xusid mudan ninkaanu inta uusan siyaasi noqon, inta uusan ra'iisul wasaare noqon, inuu ahaa jiray dhakhtar caafimaad, uuna lahay xarun caafimaad oo dadka ugu yimaadaan uu daaweeyo. Inkasta oo laga yaabo in cilmigaasu duugoobay maadaama dunida hadda ay casri noqotay, asagana 40 sano uu ku jiray siyaasad, inuu cilmigaas laga yaabay uusan maanta in badanoo ka mid ah inuusan up to date ahayn, waana sababta uu dhaqaatiir kale ula tashanayo oo uusan asagu isdaaweynayn. Waxa uu sheegay inuu fara badan wadnaha laga qabtay ugu yaraan 2 mar, lana daaweeyey qalliino iyo waxyaabo saas lagu sameeyey. Marka arrinta ugu muhiimsan oo uu ku calcalsho ma aha dhanka cuntada iyo waxyaabahaas. Wuxuu sheegaa inay qofku tahay inuu miisaankiisa kontaroolo. Waxyaabaha uu sheegay waxaa ka mid ah in si uu miisaankiisa u ilaaliyo uu isku dayo in uusan
dhergin maxaa yeele caloosha haddii la buuxiyo way fakanaysaa berito waxay rabtaa wax ka badan wixii aad aanshala gelisay maalinta ku xigta waxay rabtaa inay ka sii badan way sii fidaysa maalinba maalinta ka dambaysa way sii fidaysaa waxa uu sheegay in hooyadiis asoo yar ay bartay in cuntada xoogaa markuu ka cuno uu ka tago kadibna arrintaas uu la qabsaday ayna kadibna caado u noqotay in cuntada waxay markuu uu ka cuno asaga oon aad u dhergin uu ka tago haddaba intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka waxaan rajaynayaa aniga iyo adigaba inaan wax uun ka faa'iidno oon wax kala baxno ugu yaraan inaan ka taxadarno caafimaadkeenna